gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Filish ayaa shir gudoomiye kulan isla xisaabtan ahaa oo u dhaxeeyay hay'adaha ka howlgala caasimadda iyo maamulka gobolka Banaadir. kulanka oo ay soo agaasintay waaxda caafimaadka iyo fayadhowrka dowladda hoose ee Xamar ayaa waxaa xaadir ahaa gudoomiyaasha degmooyinka iyo wakiilo ka socday hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee ka howlgala caasimadda, waxaana looga doodayay dhowr ajendo oo ugu muhiimsaneyd in barnaamij kasta oo hay'adaha ay ka fulinayaan degmooyinka ay noqdaan kuwa nidaamkooda soo mara xarunta maamulka gobolka Banaadir. agaasimaha waaxda caafimaadka dowladda hoose ee Xamar Maxamuud Cadow ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyay muhiimadda shirkani. dhibaatooyin badan la galay, waxyaabo badan oo ayaga aaminsanaayeen oo waxaan rajaynayaa laga shaafiyo inay jiraan, inay dhahaan gabar haday IRC ka socota waxay dhahdaan aniga waxa la macaamilnay agaasim waaxid aan la shirnay. marka waxaa noo soo baxday agaasim waaxid iyo gudoomiye degmo inaysan xoogaa iskaga qasantaaba gobolkiina ay iskaga sii qasantaa mar saddexaad. marka inaysan dhihin hadda kadib aysan dhihin agaasim waaxid la macaamilay iyo gudoomiyaha la macaamilay iyo ay gobolka toos ula soo macaamilaan, gobolkan awaamirtiisa oo kor ka soo baxdo hoos loo daadajiyo. guriga waxaa la yiri waxa laga galaa irid ma daaqad laga soo galo. daanta baxda adiga garas baa lay tagtid oo gudoomiye waaxid meel jooga wax la haabeysatid. hadhow lagu soo qabto tuugaad waxa sameynaysan anaga kama qabno. hadhowdina sharciga lagu tiigsanaya. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Filish ayaa ka hadlay sida ay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir ay ugu go'an tahay in bulshada ay helaan adeegyo waxtar leh iyo ka hortagga cudurrada halista ah. ilaa xalay waxaa laga shirayay oo dowladda Soomaaliya ra'iisul wasaaraha looga shirayay wasaare uu shir gudoominay doorka uga aadan dowladda Soomaaliya ka hortagga cudurkaas. marka wax badan oo arrintaas laga hadlay waxaa laga qabtay shirkaas guddi aan anigu shir gudoomiye aan ahay oo loogu talagalay goobihii dadka cudurkaas uu asiibo lagu daaweyn lahaa, kuwa suspected caseska ama kuwa looga shakeeyay inay cudurka qabaan meeshii la geyn lahaa, iyo dadka faraha badan oo Soomaaliyeed ee ka imaanaya dunida kala gedisan, gaar ahaan wadamada la ogyahay inuu cudurku asiibay dadka ka imaanaya meeshii lagu hubin lahaa oo lagu karantiili lahaa. duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Filish ayaa sidoo kale ka hadlay doorka maamulka gobolka Banaadir iyo maamulada degmooyinka kaga aadan isla xisaabtanka hay'adaha ka howlgala magaalada Muqdisho ee fuliya barnaamijyo uusan la soconin maamulka gobolka. shirkan maantay wuxuu ahaa sida la idin sheegay shir muddo laga baaraandegayay. waxaa ka howlgala magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir hay'ado fara badan oo isugu jira kuwa international ah ama caalami ah iyo kuwa local ah oo dhammaantood ka shaqeeya arrimaha caafimaadka kana shaqeeya degmooyinka gobolka Banaadir. waxaa la isweydiiyey hay'adahaasi horta maxay qabtaan, iyay wax u qabtaan, iyay ka idan qaataan, masaxa sida ay u shaqeeyaan, adeegyada ay fuliyaan ma yihiin kuwa loo baahan yahay oo bulshada ay u baahan tahay. hadday u baahan yihiinse yacni ciddi u baahneyd ma gaartaa, si dheelitiran ma u helaan bulshadu adeegyadaas haddii ay yihiin muhiim u yihiin isla markaas loo baahan yahay.